wafdi ballaaran oo hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa si diiran oo ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Saylac ee xarunta gobolka Salal waxaana safarkiisa shaqo madaxweynaha ku wehelinayay wasiirka wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare wasiirka wasaaradda caafimaadka wasiirka wasaaradda gaashaandhigga wasiirka wasaaradda warfaafinta wasiirka wasaaradda kalluumaysiga wasiirka wasaaradda beeraha wasiirka wasaaradda dibadejinta wasiirka wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo tiknoolajiyadda la taliyaha arrimaha haweenka ee madaxweynaha xubno kale waxaana madaxweynaha loo soo galbeeyay meel fagaara ah oo loo aasteeyay inuu dadweynaha reer Saylac kula hadlo waxaana ugu horeyn halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Maxamed Waracade wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Marwo Samsam Cabdi Aadan wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland Ciise Axmed Xagla Toosiye wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Cali Jaamac Bureed gudoomiyaha gobolka Salal Cabdirasaaq Waabari Rooble gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Saylac Xuseen Iidle Barqadle oo qaal waxgarad haween waxaad ogtihiin in gobolkani kheyraadka kale uu leeyahay ay ka mid tahay duqoshin oo aan rajaynayno isnayn ay dadka reer duqoshiyeed ay isku tagaan oo ay horumar ka soo saaraan milixda taasoo wax badan laga faa'iidi doono iyadoo qoladan iskaashatada kalluumaysiguna ay hawlahooda si fiican u wataan oo ururo yaryar oo kalluunka ka furta magaaladan keena magaalooyin kale u ay jiraan mudane madaxweyne hadalka dheerayn maayo gobolka wax badan oo ka dhiman way jiraan hadday tahay dhinaca gobolka iyo hadday tahay hay'adaha kale qaranka waa madaxweynihii u horeeyay isagoo gudanaya oo ku jira muddaxileedkiisii soo booqday magaalada Saylac waa kii koowaad weyn markaan eegno nimcada fadhida reer Saylac waayadan dambe kalluun bay ku qureecdaan kalluunna way ku casheeyaan taasina waa horumaray gaadheen mudane madaxweyne dadka reer Saylac in badan bay ku amaraayeen inay ku arkaan way jeclaayeen waxay ku darabeen waxa weeyaan kasabka kasatay dadka Soomaaliland kusteena wax qabadka iyo horumarka darteed bay ku jeclaayeen ku arkaan waxa kale oo halkaasi ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeediyay dadka reer Saylac sida wanaagsan ay ugu soo dhaweeyeen magaalada Saylac ee xarunta gobolka Salal شعبك هذي مسؤولين كانوا يقولون هذه عادة موجودة الحين موجودة فاسية أبو سلام وعشبي هؤلاء كتاعنا كان يبايع كذا سبب كسر كذا وقرانا ووسعنا وروحنا وحاولين كل حالنا في عينه من البايع أول كلمة سلا أبو سلام كافر الله وما شيء كنت نعم هذا الدكتور الوحكمة بدو كل الجنة يبدأ كل الجنة شعب وكعاس بصراحة أنا وحمي وأكتب الحالة أنا أرجع يا رب إن شاء الله تعالى صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى وسيدنا وسيدنا وشكان وحسن القمري يبايع جميع الاستماع شيء يقول بايع وشكان وأنا قرني وقالنا كل شيء وسيدنا إن شاء الله تعالى
waxaanu madaxweynuhu u ambabaxay deegaanka Lughaya oo uu dhagax dhigay digad cusub oo yeelan doonto deegaankaasi kaasuu sheegay inay muhiimad weyn ugu fadhido dadka deegaanka isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi inaan dhagax dhigo halkan oo taariikhda ku galo oo ay magac iyo maamuus ku lahaano qaran iyo madaxweyne waxa weyn oo tari doonta insha Allah ta'ala waxaan leeyahay aad iyo aad baan ku hadlayaa waftigan hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ku sugnaan doono deegaanada xeebaha ee gobolada Salil iyo Awdal ayaa la diiriyay Cabdilaahi TV-ga qaranka magaalada Saylac ee xarunta gobolka Salil.